Somalidu kadeed aragtay ka baxday kuftay kacday jabtay oo kabatay Somalidu kadeed aragtay ka baxday kuftay kacday jabtay oo kabatay biilba kala geeyay kinka saarila waakan nabadgoriyo waakan isku keenay waakan biilba kala geeyay kinka saarila waakan nabadgoriyo waakan isku keenay waakan biibkaan barinayo karaama ku sarnaye kaalmeeya noqo Somalidu kadeed aragtay ka baxday kuftay kacday jabtay oo kabatay Somalidu kadeed aragtay ka baxday kuftay kacday jabtay oo kabatay biilba kala geeyay kinka saarila waakan nabadgoriyo waakan isku keenay waakan biilba kala geeyay kinka saarila waakan caawa halkan waxaan isugu nimi xaflad lagu taageerayo musharaxa maamulka goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Engineer Faisal Abshir Nuur xafladatan oo reer Leicester ay u dhan yihiin dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Leicester City ee dalka Ingiriiska dadweynaha halkan isugu yimi waa odayaasha hogaamiyaasha dhaqanka siyaasiyiinta ururada haweenka ururada bulshada waxaan malnayaa halkan reer Leicester uma kala maqnaan malnayaa jaalada caawa isku yimaadeen oo ku soo dhaweynayaan ama ay ku taageerayaan musharaxa madaxweynaha dowladda Galmudug Faisal Abshir Nuur Faisal oo loo socotaan waa taqaaniin waa nin kamid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee Leicester waa nin siyaasiya waa nin aqoon-yahana waa nin xagga arrimaha bulshada wax badan u qabtay jaaliyada reer Leicester wax badan Soomaalida ka caawiyay reer Leicester dhinaca konsolka iyo dhinaca dadka Soomaaliyeed oo inkastoo u baahan wax qabasho ama taageero dhinacyada caafimaadka waxbarashada wax badan ugu qabtay dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta waatee sida Galmudug wax badan ka qabtay hadeertan waxaan malanayaa waxaan ku soo dhaweynayaa qaar kamid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee Leicester Cabdiraxmaan Jooje oo isaguna kamid ah siyaasiyiinta jooga magaalada Leicester ku soo dhawaad Cabdiraxmaan Jooje ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن والله المرك ورس ما دي كده حسك الله سبحانه وتعالى هذه ما أنت فرصة تنينوسينا هلك كان سكوني مانو كدب إن شاء الله تعالى وحن مهد علينا لما عندك حفلة قرح البدن سو أبابولي حفلة سو من لغو تغيير يوم الشرح مدحويني إمامك قلمدق مضاني إنجينير فيصل أبشر رونهانتي أنيغا أوغالكيغا إنت أنك أقام فيصل وحان أقاني إلا سندي لو كونيو لودي إلا يهدرتان مقالة ليستر وانين دوغيقان وانين أكتيفة وانين محوها حتى هميجي سنيك وغوري الصومالي أو وحوها ميزت مقالة إنو كنسولار كان غضو رونهانتي ندد بآد بدنا يعني ما ننتا أي دورتين وانين برشيد الشاقية وانين ددكو إيكو كالسوين اسكواد له وحان هم السنة هاي جاقادا سابدي وفازركو قوليستو فانتي إنو يهاي إنو واحد بدن كسوكر من دون الصوماليا سياسة الصوماليا واحد بدن كبدل دونه حتى أنا قندون بريد كسكو حرام مامو قولي ديضا مركب قول يبراري أيان رجانيا إن شاء الله تعالى dhammaan jaaliyada reer Leicester waxaa leenahay hambalyo iyo soo dhaweyn wacan aan ku soo dhaweynayno Engineer Faisal Abshir Nuur madaxweynaha mustaqbalka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug ku soo dhaweyn kana hanad isaguna kamid ah aqoon-yahaniinta reer Leicester waa hanad Abshir cilmi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaan isugu nimid caawa inaan soo dhaweyno مشرح مدحويني دولة قلوة قلمدك فيصل أبشر نور فيصل أبشر نور تاريخ دي سنة ربعنا وحيار كشيغو فيصل أبشر نور وحو كلش مقالات مقتشة وحونا دوكسيغا هو صدح كقبح حي دوكسيغا لقو مقعاب دوكسيغا سر محمد أحمد علي وكيا اللي حافظ هو فيصل وان دقن مقالات لستر محمد ورسم الساين ها فيصل وحدقية مقالات لستر
wuxuuna soomaalida magaalada Leicester degan u qabtay shaqooyin badan. wuxuu kamid ahaa shaqooyinkiisa wuxuu aasaasay macad la yidhaahdo Samatos International Development Organization oo waxbarashada ka caawiya dhalinyarada. waxbarashadiisa wuxuu ka baxay jaamacadda University of Leicester. waxaan leeyahay Faisal waa nin dhalinyaro ah oo aad u firfircoon, maantana aan isugu nimid inaan taageerno maadaama uu yahay dadka ugu cadcad ku tartamaya madaxtinimada maamul goboleedka Galmudug. waxaan leenahay Faisal soo dhawow, waxaan u rajaynaynaa guul inuu ka bixi karo hawshaas. nin ah aan ku naqaano nin karti leh oo furfuran oo bulshada qeybaheeda kala duwan isu keeni kara, haddana ah nin maaragtay la macaamilka bulshada iyo la macaamilka dadka kaleetaba nin soo dhaw. marka waxaan leenahay Faisal kusoo dhawow, waa u qalantaa, waxaan ku rajaynaynaa guul insha waxaan u malanaya wax badan meed ka baxay ninkaas iyo waxqabadkiisa reer Leicesterow. haddeersoona kusoo dhawaada, waxaan kusoo dhaweynaynaa xuseen nuur oo isaguna ka mid ah jiifafka caaqiliinta magaalada reer Leicester. jiif kusoo dhawow. halka waan kusoo dhaweynaynaa Faisal nuur, ninkaasoo ah nin dhalinyaro ah, aadna iyo aadna active u ah, waxyaalo fara badanna wadanka Leicester u qabtay. waxaanu leenahay waa nin ka soo bixi kara xilkiisa. waxaanu leenahay welcome, kusoo dhawow maamul goboleedka madaxweynaha u sharaxan Galmudug. odayaashii reer Leicester waxaa hadda inoo haray oo hadalkan ku xijin doonaa shiikha magaalada ama shiikh beeldka magaalada Leicester. ninkan darajadiisi ma ihi nin maskiin baan ahay. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. waxaan maanta caawa isugu nimi xaflad ku saabsan soo dhaweynta Faisal Abshir Nuur. Faisal waa ninaan garanayo, waa nin wax walba qaban kara, karti leh, waa nin dadka isku soo dhaweyn kara. waxaan u rajaynaynaa inuu ma garanaysaa ilaahay ka dhiga kii maaragtay dadka isu keena, waxa uu doonayana uu higsanayna alla subxaana watacaala u fududeeyo. dhammaanteenna waxaan u sacyinaynaa ninka inuu noqdo nin maaragtay la soo dhaweeyo, waa nin karti leh, nin wax qaban kara weeye. intaas waxaan nooga baxayaa ilaahay subxaana watacaala ha ku guuleeyey. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan inta kasoo qayb shirka caawa salaamaya walaalahayga qaaliga ah, rag iyo dumar, odayaal, dhalinyaro, haddii alla idiin rooya mataqaanaa ii sheeg aad iyo aad iyo aad baan idiin soo dhaweynaynaa. kasoo qayb gasheen xafladan walaalkeena maanta Faisal Abshir Nuur aan mataqaanaa aan uga isbarasho iyo mataqaanaa aan uga hadlayno mataqaanaa ii sheeg waxqabadka iyo horumarka mataqaanaa walaalkeena uu leeyahay caawa community-ga iyo ummadeena uu kusoo kordhin karo. waa wax farxad noo ah, waa waxaan la heli karin. marka waxaan rabaa inaan ilaahdo ilaahay subxaana watacaala ama hadda iskale caawa meeshaan isugu keenay. alxamdulillahi rabbil caalamiin calaa kulli xaal. waxaan rabaa si gaar ah inaan idinkugu mahad celiyo waqtigiina qaaligaad wax naga soo siiseen mataqaanaa aad meesha ilaahay subxaana watacaala isugu keenay. waxaan kaloon rabaa mataqaanaa inaan si gaara ugu mahad celiyo waxaan nala jooga niman siyaasiyiina oo politician ah. also I would like to welcome all the politicians from the local government from Leicester. We would like to welcome you and we really appreciate it for your times that you guys been here for this event. And it will be the history. We will do appreciate it, and someone will explain in the Somali language. We're going to continue, but someone will be explaining about the meaning that we all here together. sababta aan meesha u joogno kolley walaalaha u sharaxi doona luqadeena hooyo iyadoo ah ilo afka ingiriis ugu sheegi doona. mar kale haddaan dib isugu soo noqono, waxaan caawa halkan u joognaa walaalkeena musharax madaxweyne dowlad goboleedka Galmudug, mudane Faisal Abshir Nuur. Faisal waa ku salaamaynaa, waana ku soo dhaweynaynaa, waana mataqaanaa ku hambaleynaynaa waqtigaaga qaaliga wax naga siisa caawo iyo anagoo dhan meeshaan isugu nimaadnana aad iyo aad aan ugu faraxsannahay. waa kaasaa ku salaamaynaa. waxaan rabaa marka inaan mid yar idiin sharaxo. waxaan rabaa inaan idiin sharaxo idinkoo waqtigiina qaaliga ah raalli iiga ah. musharax madaxweyne Faisal Abshir Nuur yuu yahay,
faysal muxuu nagu soo kordhin karaa, muxuu qaban karaa community-ga, halkeen joognaa halka hadda intuusa noo wada. Faysal Abshir Nuur waa nin Soomaaliya, waa nin haddii alla kuu reebo mataqaanaa ii sheeg ku dhashay caasimadda Soomaaliya magaalada Muqdisho dabeeqadii 70 Faysal wuxuu waxbarashadiisa kusoo dhamaystirtay dugsi hoose dhexe iyo sare intaba dhulka hooyo gaar ahaan magaalada Muqdisho. Faysal wuu soo baxay wuxuu wadankan gaar ahaan UK gaar ahaan magaalada Leicester. Faysal waxbarashadiisa kama sii caajisin, Faysal waxbarashadiisa wuu sii watay. Faysal markuu wadankan yimid wuxuu galay jaamacadda la yidhaahdo Leicester University oo ah jaamacadaha ugu sarreeya wadankan oo aan wada ognahay annagoo dhan aan markaa tikana. Faysal wuxuu ka qaatay jaamacadda shahaadada la yidhaahdo degree well higher degree education. wuxuu ku takhasusay Faysal maamulka oo loo yaqaano mataqaanaa ii sheeg haddii alla kuwara mataqaanaa ii sheeg maadada maamulka oo ku takhasusay. Faysal markuu soo qaatay digriga kabacdi haddana waxbarashadiisii wuu sii watay. wuxuu diyaariyey shahaadada loo yaqaano BGCE, waa Post Graduate Certificate of Education. Also haddana Faysal wuxuu sameeyey higher education qayb ka mid ah oo diploma ah oo wuxuu sameeyey international relationship politics. marka taas macnaheedu maxay tahay? waa qaybtii waxbarashada Faysal, qaybta maamulka Faysal mataqaanaa ilaa heer sare ka gaaray, qaybtii siyaasadana mataqaanaa haddii alla kula mataqaanaa higher education oo ka soo qaatay. kadib Faysal wuxuu sameeyey wuxuu usoo kala shaqeeyey hay-ada kala duwan oo wax badan usoo qabtay community gaar ahaan haddaan annaga Soomaali ku nool magaalada. aniga Faysal in macquul ahaan aqoon u leeyahay. magaalada waxaan deganahay 15 sano ilaa iyo in lamida intaan arkayay Faysal community uga dhex noqday, miduu wax u qabto, miduu u turjubaano, miduu waxbarasho ka caawiyo, miduu maada ka caawiyo, miduu mataqaanaa haddii alla kuure idinkuna kolley wada ogtiin aqoon fiican weligiina aaminsanahay. taas waa tii waxbarashada Faysal. waxaan rabaa inaan idin yara taataabto meelaha uu Faysal mataqaanaa wax ka soo qabtay. Faysal wuxuu kasoo shaqeeyey mataqaanaa iskuullo, uu kasoo ahaa maamul mataqaanaa macallin haddii alla ku mataqaanaa collegeyo uu kamid yahay mataqaanaa ishak Nottingham College. Faysal wuxuu usoo shaqeeyey ama mataqaanaa wax uga soo qabtay wuxuu soo noqdo kaleeto community consultant community-da Soomaalida ah oo usoo shaqeeyey. wuxuu kasoo caawiyay dadka mataqaanaa haddii alla ku dhinaca mataqaanaa isku xirka politicianka magaalada iyo dadkeena uu ka caawinayo, hadday tahay xagga guryaha, hadday tahay xagga mataqaanaa dhaqaalaha, hadday tahay mataqaanaa xagga waxbarashada, dhinac walba. marka Faysal waa nin dhowr hay-adooda kala duwan kasoo shaqeeyo, well experience u leh dhinaca politicianka iyo dhinaca waxbarashada iyo dhinaca dhaqaalaha intaba. waxaa kaloo mataqaanaa idana cajiib ah oo wax lagu farxa ah, Faysal wuxuu cilaaqaad la leeyahay mataqaanaa ii sheeg nimanka maamulka magaalada annaga hadda aan deganahay haysta uu mataqaanaa ii sheeg aqoon fiican u leeyahay. taasoo Faysal mataqaanaa opportunity mataqaanaa u siisay uu mataqaanaa haddii alla ku roon yahay oo xisbiga maanta wadanka haysta Faysal uu ka mid noqday, uu mataqaanaa doorasho u galay in uu ka mid noqdo nimanka siyaasiyiinta magaalada haysta. waa wada ognahay taas, goobjoogaan u ahayd. xisbiga loo yaqaano conservative wuxuu ka noqday member ilaa iyo mataqaanaa cod heer sare ah oo mataqaanaa number la sheegi kara uu ka helay, uu ka mid noqday. taasuna waxay annaga noo fududaysay, noo sahashay in maanta qof annaga naga mid ah uu siyaasadii magaalada mataqaanaa maamuleysay siyaasiyiintii magaalada maamulaya uu nooga mid noqdo oo maanta noo noqdo mid noo dhexeeya isu keena xira annaga iyo mataqaanaa siyaasiyiinta magaalada haysta. wax walba naga baahan naga caawiyo, hadday tahay education side, hadday tahay mataqaanaa ii sheeg construction side, hadday tahay politician side, mataqaanaa hadday tahay mataqaanaa dhinac walba ama waxbarasho ama shaqo mataqaanaa always alxamdulillahi rabbil caalamiin. marka Faysal
ما لسه كوبي كروتاج ديسي ما شاء الله تبارك الله وانين آد وفرعون كوميونيتي آد وكموقدة واحد بدن سوق قبطي هدي الله كولا ما تقعنا إيش اسكولا بدن كسر شقي كولج كسر شقي ما تقعنا إيش كذا بحضرشيس إلا إيهاب ما شاء الله ما تقعنا لتمام كريته وحقبت ككوميونيتي وسوق قبطينا وهذا هدو إلهي سبحانه وتعالى رالي كدو كوكولي يسيو أرنت أن مشرح لماذا aan kulligiina aan aaminsannahay inuu wax badan uga soo kordhi karo waddanka maxaa ka mid ah for example waxaa ka mid ah Faysal xisbiga maanta waddankan aan joogna ka taliya ayuu member ka yahay bafiirada taas maadaama uu member ka yahay uu loo codeeyay oo xisbiga ku jiro ka politician ahaan oo siyaasiyiinta waddankan maanta haysta iyo waddanka hooy isku xiri karo oo waddanka hooy maanta waa ognahay baahida ka jirta uu wax badan ka bedeli karo waxaan aaminsanahay Faysal maanta meeshan aan joognay intaan oo wax qabad ah oo aan wada tilmaamnay oo aan wada ognahay inteedo kale inuu ka qaban karo waddanka hooyo insha Allah ta'ala hadu Ilaahay subhanahu wa ta'ala la kadu marka waxaan farxad weyn maanta noo ah wax lagu farxaa in maanta walaalkeena Faysal Abshir Nuur oo mataqaana intaasoo activity oo muuqda oo waxbarasho leh dadaal leh dadnimo leh tacliin leh oo annaga noo qabta halkan maxaa isleeyihiin hadduu waddanka hooyo uu ka qaban karaa ka badan lagu jabaan soo ma aad iyo aad marka waxaan halkan annagoo dhan u joognaa taageero kal iyo laab leh inaan u muujino walaalkeena Faysal Abshir Nuur in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku guuleysiiyo hawshan uu ku guda jiro annagoo dhan aan ku faraxsannahay qalbiga iyo maskaxda meel walba aan ka taageerayno inkastoo Faysal u baahan asaashan u baahan hadii maanta uu naga tago waddanka hooyo uu tago oo wada ognahay in waddanku uu baahan yahay wax badan uu ku soo kordhin karo laakiin annagina aan tabayno oo aan u baahannahay wax badan uu noo qabto wax badan uu naga bedelay Faysal community-ga laakiin waxaan insha Allah ta'ala ka rajaynaynaa waxa noo bedelay inaan helno insha Allah ta'ala mar walbana hadda waddankii hooyo ninka wax ku soo kordhinaya waa kan aan u baahannahay waana wada ognahay baahida maanta waddanka jirta tusaale haddaan idin soo qaado dowladdan u dambaysa hadda noo dhalatay waddanka hooyo isbedel weyn kusoo kordhisay waddanka shacabka waataad ogeydeen habka mataqaanaa waddanka xuduud ilaa xuduud loo mudaharaado loogu farxayo loogu rayaaqay taas maxaa keenay waxaa keenay isbedel ka dhacay baarlamaanka isbedelka baarlamaanka muxuu ahaa baarlamaanka isbedel ka dhacay wuxuu ahaa 90% dhalinyaro qurba jooga macaatay mataqaanaa wadannimo ku abuuran tahay waddan jacayl ku abuuran yahay og xanuunka qurbada og dhibka nagu haysta haddii aan qurba joognahay adduunka caalamka meel kastoo aan kala joogna aan kala daadsannahay saas aawood ayagiyoo laabtay ayaa waddanka isbedel aan caadi ku keenay markay baarlamaanka wada mid noqdeen ee baarlamaanka wada galeen waa kan codkoodii lagu aflaxay ee dowlad xura xalaala nadaama ee noo dhalisay alxamdulilah rabbil caalamiin Faysalna maanta waxaan u jeedaa oo ii muuqda hadduu ilaah raalli ka dhigo idinkana mataqaanaa insha Allah ta'ala aan u malaynayo inay idin muuqato ama aad ku faraxsantihiin amaba aad dareemaysaan in hadduu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka dhigo uu ku guuleysiiyo waddanka hooyo ku laabto uu tago mataqaanaa ii sheeg dowlad goboleedka Galmudug uu ka qayb galo doorashada in Faysal insha Allah ta'ala hadduu Ilaahay ku guuleysiiyo wax badan ku soo kordhin karo Galmudug wax badan ka bedeli kara Galmudug maanta alxamdulilah rabbil caalamiin Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ay u baahan tahay Galmudug nadaam iyo barwaaqo iyo bashbasha taala laakiin waxaan u baahannahay nin hore u sii daadaheeya nin hore u sii wada nin haddii alla kuu roon yahay dareemaya maanta baahida taala ee loo baahan in wax laga qabto Galmudug waxay u baahan tahay nin mutacallima oo cilmigiisa kusoo kordhiya Galmudug waxay u baahan tahay nin siyaasiya xaqeeda u doona ee u soo dhiciya Galmudug waxay u baahan tahay nin u istaaga horumarkeeda mataqaanaa isha dhinaca caafimaadka education side waxay u baahan tahay construction dib u dhis loo siman yahay kulligeena saqiir iyo kabiir waa waajib wadaniya muqaddasa oo kulligeena looga baahan yahay inaan wada istaagno si maanta meeshay joogto meel ka sii fiican aan ugu wadi lahayn nimanka siyaasiyiinta hadda waddanka hore joogan aan u duceyno mataqaana ilaah inuu garabkooda galo wixii aan kusoo kordhi karana na aan kusoo kordhino marka Faysal Abshir Nuur waa nin dhammaystiran ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu dhammaystiray xag cilmi xag diineed experience hay'ada international la soo shaqeeyay
haddii alla kuna mataqaanaa ii sheeg dhinac walbana ola taabo karo isla markaana mataqaanaa ii sheegay isku xiri kara community halkaa jooga iyo siyaasiyiinta gaar ahaan magaalada maanta aan ku noolnahay oo Faisal uu mataqaanaa uu la soo shaqeeyay wax la soo bartay hay'ado kala badan mataqaanaa uu la soo shaqeeyay inuu isku xiri karo haddii alla kuna mataqaanaa annagoo dhan iyo wadankii hooyo oo isku kala xiri karo wax alla wixii markaas looga baahan yahay ay noo naqanaysa dariiqa umarno oo hagarli ah oo daacada oo xul iyo xalaala hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka dhigo marka yaana wax badan hadalka idinku daalin Faisal warbixintiisa oo kooban waa idin siiyey aad iyo aad ayaan idinkugu mahadcelinayaa kasoo qayb gasheen Faisal Abshir Nuur aan u istaagno waa galmudug ninka ay u baahanta waa ninka hore loo wadi lahaa waa ninka maanta dareemaya waxa aan u baahannahay iyo meesha aan u soconno aad iyo aad aan kaga mahadcelinayaa jazaakum allahu kulla khayr waqtigeena qaaliga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay inaan ka soo qayb galnay xafladii musharaxnimada madaxweyne galmudugta cusub haddii ilaah yiraahdo insha allahu Faisal Abshir Nuur musharaxnimadiisa arrinkaas mudanayaal iyo marwooyin anigoo Cumar Xasan Maxamed Cumar Dheere aad iyo aad baan ula dhacsannahay aad baan u taageersannahay galmudug waxay u baahan tahay isbedel dhismo cusub nidaam iyo kala dambeyn maamul dadku wada leeyahay in dib loo yeelero in rag dhiig cusub ah lagu beero meeshaas in maamulka hadda jira runtii haddee dadka Soomaaliyeed waa garanayaan hadday noqoto wixii meeshaas ka jiray raggii aad iyo aad isugu dhabar jabiyey in wax wanaagsan ka soo baxaan oo waxa hadda jira aysan ahayn wax dadka deegaanka oo dhan matala raggii isku dhabar jabiyey baan ka mid ah waad ogtihiin maamulka gobolada dhexe ama dhaha al-sunna wal jamaaca aysan arrinkaas cadaalad keliya ku kooban inuusan ahayn mid u dhisan Faisal waxaan rajaynaynaa Abshir Nuur inuu arrinkaas ilaahay ku guulaysiiyo kuna dadaalo dadka deegaanka inuu maamul ay leeyihiin meeshaas uu dhabarka runtii ugu adeego waxaan rajaynaynaa nimanka xildhibaanada hadda galmudug fadhiya ama meeshaas inay dadka Soomaaliyeed inay matalaan inay u istaagaan inaysan dadna u afduubnaan maamul dhacay oo madaxweynihiisii tagay inaan hadda waxba aysan ku mashquulin kuwa kale oo hadda maamulka joogana waa unda temporary maamulkaasu waa tagay maamul cusub oo Soomaaliyeed meesha aanu ka soo baxo Faisal waxaan leenahay soo dhawow ku guulayso rajo weyn baan ka qabnaa taageeradaan dhulkaas ku leenahayna runtii waa kugu garab istaagaynaa wax Soomaaliyeed inay meesha ka soo baxaan oo runtii mar dambe aysan ka dhicin in group gooniya ay xukun marwaqsi ku qabsadaan aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ka soo qaybgalka xafladaas waa mahadsantiin haddana waxaan mikrofoonka aan ku wareejinayaa suldaan ka mida suldaamaha Soomaaliyeed suldaan qiilma waaye oo runtii lagu xasuusto arrimaha Soomaalida jubbooyinka alxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigoo ku hadlaya magaca odayaasha Soomaaliyeed ee UK gaar ahaan deegaankan Leicester waxaan rabaa marka hore inaan salaamo dadka meesha iskugu yimi oo ka kooban bulshada qeybaheeda kala duwan oo dadka faraha badan oo waqti badan meeshaan fadhiyay inaan salaamo oo salaanta islaamka ku salaamo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib aniga dadka meeshaan fadhiya dad fara badan oo Soomaali kala duwan oo gobollo kala duwan ka yimi weeye waxay aqoon u leeyihiin Faisal Abshir Nuur bay aqoon u leeyihiin sharaf weyn bay noo tahay inaan ka soo qayb galno taageerada la taageerayo Faisal oo uu madaxweyne inuu ka noqdo gobolkaas
ama goboladaas galmudug inuu madaxweyne ka noqdo mustaqbalka waa la iskugu yimi meeshan waana loo dhan yahay waana la isku waafaqsan yahay raalli baana laga yahay maxaa yeelay faysal waa la tijaabiyey waa la arkay dadkan aan meeshan aan joogno gaar ahaan Leicester waxa uu ka qabtay baa marag ah waxa uu ka qabtay wax la qarin kara ma aha meeshan oo qabowga iyo shidada iyo dhaqan kale iyo dad fara badan oo aan la diinahayn ninka waxaan ka qabtay dadkiisii afkiisii diintiisii dalkiisii meeshii uu yaqaanay miles buu jeexi karaa baan aaminsanahay marka halkan ujeedadeena waxay tahay inaan muujino oo u sheegno dadka galmudug oo codka leh oo wax bixinaya codka bixinaya sida xildhibaanada in ay maanta ka taliyaan aayaha galmudug waxa u roon waa sida umusha ilmaha waxa u roon umusha waxa u roon baa ilmaha u roon galmudug waxa u roon baa Soomaaliya oo dhan u roon galmudug waxa u roon ninkii dadka u roon baa u roon ninka nin aqoon leh oo wax qaban kara oo daacad ah oo nadiif ah oo bari ah oo aan wax dambi lahayn oo aad Soomaalida oo dhan isku haltahay oo aan ognahay meesha inuu wax ka keeni karo weey waxaan walaalaha ka codsanaynaa inay siiyaan codka waxaan walaalaha ka codsanaynaa inay doortaan oo u doortaan madaxweynaha galmudug annagoo hubno ninkaasi haddii ilaahay u qoro oo ilaahay uu ka dhigo in ay galmudug ay geli doonto xaaladda maanta ay ku jirto xaalad ka duwan anoo waqtiga ilaalinaya oo dadkoo daalan iyo dhibka maaragtay waqtiga fadhiya ilaalinaya waxaan warkayga kusoo koobayaa ilaahay ha ku guuleeyo Faysal Abshir Nuur inuu noqdo madaxweynaha galmudug. Good evening. My name is Robert Watson. I've been involved in Somalia now for about 6 years, and I've known Faisal Nur for about 3 of those years. My interest is in business and in creating jobs and getting prosperity into Somalia. But I'm very conscious that Faisal has been working in the community here in Leicester, one of the very first people in the Somali community to get involved with the government in Leicester. He works across his own community, but he also works across the boundaries into mainstream communities here. In that time, he's learned an awful lot about the way democracy works in this country, and I'm very confident that were he to become president of Galmudug, he will bring that knowledge and expertise with him to ensure that democratic principles and transparency are applied in Galmudug. Faisal and I have also worked to try and get the fire service developed in Galmudug. Leicester pioneered the fire service in Mogadishu by providing fire engines for Mogadishu and the head of the fire service there. And I've been working with charities and fire brigades here to get the support from the UK, which we're now trying to introduce into Galmudug. بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مدنيال يمروين ولا ليال كسو غيب قلياشا برنامج كان عاوي آن كسو بندقيي مشرح نمدايدا حلكا مدحتنمدا دولة قبلات كالقلمدو دمان مرت شرفتا كلا دوان قيبها كلا دوان بلشدة جالية لستر مر لباد مر سدحات وحان جعلان لها إنان إدنكو سلامو سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال عاوة أو كلمة هبين ليسوي ما ضد دماشات حفلة وحان لسعنا إن دلك إنه أي كجرته مصيبة ربانية دباتو أبارد وحان ربا ولا ليال إنا أدو عيسان
dhammaantiin dadka walaalaheen ah oo ay dhibaatada ku dhacday. waxaad la socotaan in Allah subxaanahu wa tacaala uusan u waayin dadkaas walaalaheen ah waxa ay cunaan iyaga iyo xoolahooda in Allah subxaanahu wa tacaala uu quudin karo, laakiin innagana laku fiirinayo sida aan uga damqanno, sida aan ugu gurmanno, sida aan fariin ugu celino dadkaas, waxna ugu geysano, waxna horumarsanno khayr ah ayaa Allah subxaanahu wa tacaala nagu fiirinayaa. waxaan idinku baraarujinayaa meel kastoo aad joogtaan inaad arrintaas u istaagtaan, gamcaha isku qabsataan, u walaalowdaan sidii dadka loogu gurman lahaa. waxaan xasuustaa markii ay bilaabanaysay abaartan dalka ku baahday ee waxba aan reebin, muddo 3 bilood qiyaastii ka hor, in deegaanka Camaara oo ah deegaan ka mid ah deegaanada dowlad goboleedka Galmudug uu walaal ka mid ah reer Galmudug isku daldalay kadib markii uu u adkeysan waayay musiibada rabaaniga ah ee ku habsatay dhammaan dalka, gaar ahaan isaga iyo qoyskiisa. abaartu waxay reebtay dhibaato badan oo qaarkeen inaga mid ah sida hadda aan sheegay ay isku daldaleen. markii waddan dagaalla ka dhacaan, dagaalladu inta badan waxay reebaan cudurro dhinaca dhimirka ah ayay reebaan oo terminology ahaan la yidhahdo war syndrome. laakiin hadda ilaa hadda terminology dhakhaatiirta kama aysan soo saarin, kama bixinin dadka abaarta iyo masiibadan kuleylka badan darteed isku daldalay, oo aan u malaynayo inay tahay drought syndrome oo ah cudurro dhimirka ah oo ay abaartu keentay. waxyaabahan kale way dhaceen, muddo badan bay Soomaaliya ka dhaceen, laakiin xilligaas dadku way isku gurman jireen, waa la iscaawin jiray. magacyo badan ayaa loo bixiyey abaarihii dalka Soomaaliya ka dhacay, sida duumaaley, abaartii dabadheer, casri qalato, moodal xooga. dadkana meelaha ay ka yimaadeen iyo gobollada ay ku kala xir yihiin, waxaa laga yaabaa dadka qaar inay u yaqaanaan magacyo kale oo kala gedisan. abaartan waa abaar runtii magac hadda loo bixiyo aanan garanayn. waxaan isleeyahay abaartan waxaa la yidhaahdaa abaartii wax ismatara, sababtoo dadkii looma gurman, waxba lama gaarsiin, lama caawinin. waa runtii arrintaas waxay nagu tahay ceeb iyo cambaar ayay nagu tahay. waxaan dowladda federaalka, international community-ga iyo hay-adaha ka howlgala dalka Soomaaliya ugu baaqaya inay caawiyaan ummadda Soomaaliyeed oo aysan la sugin xilliga roobka. walaalayaal, mudanayaal iyo marwooyin, haddii aan u soo noqdo barnaamijkayga caawa, aniga oo ah Faysal Abshir Nuur, waxaan jeclaan lahaa inaan idiin soo bandhigo waxqabadkayga haddii Allah subxaanahu wa tacaala igu guuleeyo musharaxnimadayda oo ay ii suurto gasho inaan dalka Soomaaliya gaar ahaan dowlad goboleedka Galmudug madaxtinimadiisa ku guuleysto. walaalayaal, mudanayaal iyo marwooyin, saaxiibayaal, haddii Allah subxaanahu wa tacaala igu guuleeyo xilkaas isaga ah, slogankaygu waa good governance and unity. good governance and unity. waxaan dowladda gaarsiin doonaa, waxaan maamulka gaarsiin doonaa dhammaan gobollada dowlad goboleedka Galmudug, degmooyinkiisa, tuulooyinkiisa,
ayaa waxaan gaarsiin doonaa maamulka qof walba qoys walba iyo koox walba wuxuu ugu tegi doonaa meesha ay joogaan. waxaan samayn doonaa qorshe dadku ay ka wada faa'iidaysanayaan maamulku ma noqon doona maamul u xiran koox xisbi ama reer. walaalayaal, Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan deegaanada Galmudug waxay u baahan tahay dib u heshiisiin. waxaan la soconnaa in culamo diinka ahlu sunna wal jamaaca ay in muddo ah dhaliilsanaayeen systemka uu ku shaqaynaya maamulka Galmudug, taasoo ay aaminsan yihiin inaan laga talagelin bilowgii hore, isla markaana aysan suurtagelin in la saxo qaladaadkaas. waxaan xiriir wanaagsan la leeyahay culamo diinka ahlu sunna wal jamaaca oo aan isleeyahay wax badan ayay ka bedelaysaa horumarka deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. waxaan heshiis dhab ah, mug weyn, miisaan leh, laga fiirsaday, la isku fahmay, la geli doonaa culamada ahlu sunna wal jamaaca. walaalayaal, mudanayaal iyo marwooyin, waxaad sidoo kale la socotaan deegaanka inuu yahay deegaan abaar baan ka jirto, sidoo kalena ay barbar socdeen colaado soo laalaabtay, gaar ahaan magaalada Gaalkacyo. magaalada Gaalkacyo waa magaalo ay degan yihiin dad walaalo ah, Soomaali ah, u baahan istiraatiijiyo gooni ah iyo system gooni ah iyo nidaam gooni ah oo dadkan isku fahansiiyo. magaaladaas anigu waxaan u hayaa program programkaas waxaan u bixiyey win-win solution, oo ah guushii dhinac walbaba ka qoslinaysay, ama halkii dhinac walbaba uu u arkayay inuu guulaystay. win-win solution waa xal magaalada Gaalkacyo dadka ku nool ay isku fahmi karaan, ku walaaloobi karaan, wax ku qaybsan karaan, resourceka magaalada iyo amnigeedaba ay si siman oo cadaalad ah oo ay ku qanacsan yihiin insha allahu uga wada qayb qaadan doonaan. sidoo kale magaalada Gaalkacyo haddii aan guulaysto, dhibaato dambe kama dhacayso insha allah. dadka walaalaha ah gacmaha la isku saarayaa, si daacadnimo ku jirto, walaaltinimo ku jirto ayay isku saamaxayaan, magaaladana waa isku furmaysaa biidni illaahi tacaala. walaalayaal, mudanayaal iyo marwooyin, sida aad la socotaan, dalka Soomaaliya wuxuu galay isbeddel siyaasi ah. isbeddelkaas waa inaan ka wada faa'iidaysanaa. waa in isbeddelkaas uu noqdo isbeddel dhammaanteen na anfacaya, isbeddel dhammaanteen aan ka faa'iidaysan karno. dalka maantay waxaa hogaaminaya dhalinyaro. isbeddel baa dhacay. baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay si cadaalad ah ugu codeeyeen rag dhalinyaro ah, mutacalimiin ah, aan rajeynayna inay wax badan ka bedelaan siyaasadda Soomaaliya. waxaa la yidhi calaamatul madar fi saxaab, roobka waxaa ka soo horeeya dabayl yar, nacaaw yar oo udug wadata. calaamadahaas marka la arko waxaa la leeyahay cirka roob ayaa ka imaanaya, kicin baa ku jira. dalku sanadkan waa dhalinyaraysan yahay, dhalinyaro ayuu u baahan yahay, isbeddel dhalinyaro u baahan yahay. dadku waa inay fahmaan hoggaanku waa dhalinyaro. odayaasha lagama maarmo, waa maskaxdii, waa asadkeennii, waa hantideennii. waxaa laga rabaa meeshay ka qalloocato
inay ka toosiyaan meeshay ka liicda inay ka celiyaan laakiin ha ogaadaan hoggaanka dhallinyaro ayuu u baahan yahay galmudug baarlamaankeeda waajib baa saaran waajibka saaran waxay tahay inay ka fakaraan mustaqbalka dadka aayaha dalka iyo dalkan meeshuu ku socdo meesha maanta aan taagannahay meesha aan rabno 2 sano kadib inaan gaarno inay noo caddahay ayaan rajaynayaa mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal barnaamijkayga intiisa badan waxaan ka hor akhrin doonaa baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug marka la gaaro waqtiga doorashada haddii allah awoodda la ogolaado intani waa hordhac aan ugu talagalay walaalahayga caawa horteyda fadhiya inaan bal in yar uga taataabto hamigayga meesha aan jooga iyo meesha aan ku socdo resourceka aan raba inaan isticmaalo iyo ujeeddada ka dambaysa inaan issoo sharaxo waxa ay tahay dalku inuu isbeddel ka dhaco waxa ay tahay in dadkayga iyo dalkayga ay helaan amni iyo istiqraar inay helaan nabadgelyo iyo tacliin inay helaan siyaasad hufan oo ay adduunka wax kula qaybsan karaan inay helaan mustaqbal ifaya inay helaan vision aragti fog oo isbeddel dalku uu ku gaarayo nabad cadaalad sinaan wax wada qaybsi iswalaashi mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal waxaan ku soo gabagabeynayaa tacaawanuu cala albiri walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan ha la iscaawiyo dadku ha iscaawiyaan abaarta ha loo gurmado ha la istaago gamcaha ha la isqabsado dadku ha walaaloobaan horay aan u soconno midnimo and good governance aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu aad baa mahadsantihiin halkan waxaan u maadnay xaruntii isku soo sharaxay faysal abshir nuur oo runtii ah ninaan runtii muddo dheer isgaranaynay oo magaalada leicester ka mid ahaa dadkii mataqaanaa runtii nin firfircoon oo arrimaha bulshada iyo waxbarashada iyo community runtii aada u waxaysmay runtii waa markii soo sharaxay yani waa qof aan naqaano oon garanayno waxaan u rajaynaynaa guul insha allah waxaan filaynaa kulley hadda mataqaanaa markii uu goobtii doorashada uu tago waxaan u rajaynaynaa insha allah inuu mataqaanaa dadku ay ku qancaan fikradihiisa iyo mataqaanaa haddii ilaahay ku run yahay iyo aaraadiisa iyo firfircoonidiisa waa nin dhalinyara marka insha allahu tacaala khayr u rajaynayna Soomaalidu kadeed aragtay ka baxday kuftay kacday jabtay oo kabatay Soomaalidu kadeed